muuqaal baahiyaha damka TV iyo hudus ee waddanka Talyaaniga ee magaalada Firenze warka jiroon ka sheeg maanta aan ku soo qaadnaa bishii 11 bishii 11 23 warka jiroon ka sheeg waxaan rabaa inaan ku soo qaato Soomaaliya Ilaahay dhulkii ugu wanaagsanay ayuu ugu deeqay maadaama oo Ilaahay noo gartay inaan naqano dad muslimiin ah boqolkiiba boqol Soomaaliya waad aragteen kalimaha adduunkan ugu wanaagsan ayaan haysanaa nasiib waxaan u yeelanay badii dheereed ugu dheereed Afrika inaan haysano iyo Mare Rosso inaan xaggaas ka galno oo labo bad aan ku laalno marka Ilaahay wuxuu kaloo noogu deeqay dhul feertila ah dhul abuur ku fiican Ilaahay wuxuu noogu deeqay xayawaan xoolo Ilaahay wuxuu noogu deeqay oo kale social kale oo badan oo adduunka maanta qaali ka ah waxaan nahay dawladda lixaad ee adduunka mase benziin iyo wax gaas dadka haysto ayaan lixaad inaan ku jirnaa filayaa mase toddobaad meelahaas inaan ku jirnaa filayaa adduunkan dawladaha jiro maanta marka horta waxaan nahay dad nasiib badan laakiin nasiib xun maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed ma aha ummad wadani ah wadani ah ma aha waxayna wadani ku ahayn waddankaas sidaas u yaallo wanaagsan ayay haystaan ayaa maanta ayaga dhibaato ay ayaga isku hayaan waxaa la rabaa ninka bini'aadanka ah haddii ummaddan ay aaminto ay jago u dhiibato mase waxay u dhiibato waxaa laga rabaa inuu noqdo nin amiin ah oo wixii loo dhiibtay ummaddan u dhiibatay oo si wanaagsan u ilaaliyo laakiin hadduu noqdo nin rabo wixii loo dhiibayo dhanba inuu laqo waa mushkilada anaga maanta na haysato Soomaaliya haysato waay marka waxaa nasiib darro ah in nin kastoo meel loo dhiibo oo rabo wuxuu meesha ugu tago inuu jeebka ku rito hadda waxaa wax lala yaabaa xasan sheekh maxamuud masaajid ayuu wuxuu ka sheegi jiray kana soo hadli jiray oo dhihi jiray musuq ayaan la dagaalaynaa musuq waa in la soo qabtaa musuq waa in inta laga bixiyaa ayuu lahaa musuqi hadda uu xirkaha goostayba hadda waxaa yaallo ama qoraalkeeda aan ku soo raaci doonaa macnaa in la samaysanayo shirkadahaasna la rabo ummadda Soomaaliyeed in lagu dhaco hadda problemka maanta taagan waxa waaye diyaaradihii cargo-ga ahaa mase airportka ayaa waxaa la yiri dadka keena electroniga mase sida telefoonada mase telefishinada mase computerada tayadooda ayaa la ilaalinayaa nin kastana waa inuu bixiyaa 50,000 waxaa wax lala yaabaa haba la bixiyo mase hal yiraahdaba markay waxa lacagta dawladda akaankeeda ay ku dhacayso mase wasiirka maaliyadda oo soo saxiixay warqadda uu ku cad yahay lacagahaasna ay qasnada dawladda ku dhacayso almeeno dad bay wax taraysaa mase shaqaaliha la siiyo mase askarta la siiyo waa wax la yaqaano laakiin haddii ay shirkad in loo suubsado shirkadaasna ay lacagtaas iyada aruursanayso ay wax ku ridinayso tayada ay ilaalinayso iyagu ilaalinay hadduu faalsi yahay iyo hadduu ka fiicnaa yahay kor iyo hoos lacag ay qaadanayaan waddanka ku sii deynayaan hadda cargo-gi problemkaas ayaa ka taagan warqadii oo la tirtiray shirkadda company-ga magaceedii kulli waa soo gudbi doonaa mid kale oo wax lala yaabo ah madaxweynihii waddanka xasan sheekh maxamuud 12 biri ayuu waddanka ka maqan yahay 12 biri waxaa la isku waday madaxa laga qalay inta laga qalay saana lagu suubi kana lagu suubi waxa la sheegay anaga intaas waa dhageysanaynay laakiin wax ka soo qaad ma lahayn markii waxaa la rabaa markaad wax sheegaysid inay yihiin wax jiro looma baahna waxaan jirin inaad ka hadashid
aad biri masdarkoodii meel aad saartid aad haysanin iyadoo sida ay tahay ayaa shaashadaha telefishinada waxaa ka soo muuqday xasan sheekh maxamuud oo diyaara ka soo degayo ay gacanta u xiran tahay marka waxaa wax lala yaaba ah madaxweyne umadeed oo iska maqan oo problemka oo qaba aan la ogeyn ay ummadiisa ka warqabin haddii uu ka soo muuqdo asigoo gacantii ay duuban tahay oo haddana shir u socdo maxaan dhihi karnaa maxaase ku sheegi karnaa marka nasiib darro ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay waaye madaxweynaha waa nin qiimo leh madaxweynaha waa ummadda soomaaliyeed ninkii horjoogu u ahay waaye waxaa la rabaa haddii dhibaato ay jirto inay ummadiisa ka warqabto si quraan loogu aqriyo si loogu duceeyo laakiin haddii dhowr iyo 10 biri kadib madaxweynihii oo gacan ka duuban oo wax ku dhacay aan la ogeyn ilaa iyo hadda cid dhihi karto waxaasaa ku dhacay ayna jirin oo hadalla male awaal la wado waa kufay waa dhaciyay asoo socdo iska kufay isbitaal la geeyay waa la qalay waxaan arkay xataa sawir oo macnaa photoshop oo la sameeyay asoo isbitaal ku jiro oo nin takhtar ag joogo waa aniga si fiican aan u aqaanaa waxaas waa howlahayna waa la dul saaray oo isbitaal inuu ku jira laga dhigay macnaa waxaas oo dhan waxaa keenaya wax waaye in wixii la qariyo madaxweynaha ummadan dhan oo mas'uul ka yahay inuu wixii si ay qarsoonaadaan ma ahaba waxaa kale rabaa inaan halkan ka sheego wadankii roob yar ka da'ay waa aragteen biyihii halaga dhigooy war mootada gabaraa saaranay halaga dhigooy qaylada yareys waa aragteen 10 daqiiqo 20 daqiiqo socday roobkaas roobka haddii laba bir uu da'o sida Talyaanigan oo kale oo ayaan horaato uu ka da'ay roob oo meel kasta galay wabiyihii jeexay hadduu ka da'o muqdisho waa lagu dhamaanaa barkay meel ay biyo ka baxaan male meel laami ma jirto waxaan ku yiri qashinka waa isdhexdaadsan yahay horta cudur iyo dhibaato ummadda waxa ugu wacanba qashinka iyo waxa wadanka dhex yaalo marka waxaa la rabaa in wax la isku falo dadkan lacagaha u ordaayo oo rabaan nin la arko meel oo lacag un ka helo oo raadinayo waxaa loo baahan yahay in la iska dhaafo xasan sheekhna inuu afka ka hadlo musuqan la dagaala oo yiraahdo oo musuqa habartiis iyo adoogiis oo asiga horsocod u yahay waxaan filayaa wax la yaabo waay mideedi kale shiru u yimid Saudi Arabia xasan sheekh maxamuud iyo awees oo ah safiirka sacuudiga u fadhiyo labadooda kaliya kursi ku fadhiyaan wasiirkii arrimaha dibadda wasiirkii maaliyadda mas wax waaye labadooda ayaa la shiraayo boqortooyada Saudi Arabia mas shirka ayaga nooga qayb galay kaligood markay dawlad hadaa maqashid waa inuu ninka wasiiradiisii dadka la shiraayo mas wax loo socdo haday tahay ganacsi haday tahay maxal dhahay arrimaha dibadda waxay tahay haday tahay minister del interno wasiirka arrimaha gudaha mas difaaca haday tahay wax kasta waxa la rabaa markii meel la aadayo oo dhibaatooyinka na haysto inaan dadka u sheegan aan rabno waa in la wadaa dadka coalition ah oo ka kooban dawladda oo dhan wax ay yihiin laakiin haddii madaxweynihii iyo ninka safiirka ahay oo kaliya ay kursi soo fariistaan sawirka waa soo gelinaa ay soo fariistaan ay labadooda ummadda dhan ayaga ma matalayo marka waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa dadnimada iyo muwaadinimada inay soo laabato waxaa wax kale iga yaabiye wax waaye gabar Soomaaliyeed oo ay naftirkeeda afka markay ku hadlayso afkeeda hadal jajaban ku hadlayso laakiin boqorad oo fiican ayaa waxay noqotay meel ay waxay ka noqotay duq magaalo gabar Soomaali waaye Soomaali maxaa la isku haystaa qabiil hebel ka dhalatay iyo qabiil hebel ka dhalatay wargabadhan waa Mareykan ay ku dhalatay meeshaas ay ka tartantay sharaf iyo magac inoo soo hoysay inaan anagoo Soomaali ah maanta oo shalay tagnayo 20 sano 25 sano ee joogno dadkii oo intaas oo qarni oo madowga ahay oo wadankaas deganay
oo slaveriska lagu keenay ay wax ka naqanaynin haddaan anaga wax ka naqanay inaan isu bogaadina waaye inaan qabiilkeeda raadina ma aha hadda gabadhaas qabiilkeeda la raadinaya oo la leeyahay waa murusade waa Saleemaal waaye waa habar gidir waa hawiye waa daarood waa fulaan war gabadha moraalkiisa laga jibin gabadhaas magacayna iyo sharafteena kor u qaaday dadka ha xishoodaan waxyaalaha qaarkoodna waxa fiican in laga xishoodo marka waxaan ilahay waxyaalaha qaarkood oo ceeb ayaa jiro aan yareyno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh